Soomaaliya gaar ahaan telefishinka qaranka waxa uu soo bandhigay ilka case ninka lagu magacaabo isla markaasina ahaa macallinkii dilaaga ahaa macalinkaasi oo xusay in ka badan 180 qofood inuu ku dilay magaalada Muqdisho marka iyo meel kasta oo ka tirsan macalinkan ayaa si weyn loola yaabay xalay isla markaasina filimka ay soo deeyeen oo oo ka hor isla markaasina qof walba siday u dileen ayuu sheegay si kastaba ahaatee ilka case ayaa ahaa shirkad maamusha isla markaasina dilalka u qorshaysan ayaa waxaa la shaqeey jiray dad badan oo ay ku jiraan hablo si kastaba ahaatee xal waraysigii la soo deeyay ayaa 42 daqiiqo oo ahaa hasaatee waxaan ka soo qaadanaynaa oo kaliya inkastoo wiilka lagu magacaabo youtuberka ee Asad Xaajiyo ayaa markii oo waraysiyada ama dokumentiyada oo duubayay waxa uu sheegay in marnaba uusan garanaynin qaabkii loo dilay dadkii dilayba si kastaba ahaatee Asad Xaajiyo ayaa buug cusub u furmatay isla markaasina maanta ogaaday ama xal la ogaaday qofkii dilay inay soo baxday ururka al-shabaabna uu ahaa Asad Xaajiyo ayaa waxa uu horay dokumentigiisa ugu sheegay asigoo dukaankiisa joogay in xabada lagu furay isla markaasina la damacsanaa in loogu daba tago isbitaalka kadibna lagu dhameystiro si kastaba ha ahaatee Asad Xaajiyo ayaa iminka iyo dad badan oo boqolaal qofood ah oo taageero u ah wiilkaasi oo isla markaasina lugaha dambe cuuryaanka noqday dhaawacii loo geystay ayaa xalay si kaliisa waxa ku soo baxay ilka case oo ah macallinkii dilaaga ahaa uu sheegay in qaabkii loo dilay uu soo bandhigay ilka case ayaa waxa uu sheegay dil ayaan halkaas ka fulinaynay ayuu yiri isla markaasina nin ayaan dilnay ninkii markaa dilnay kadib ayaa waxa soo baxay ayuu yiri anagoo dukaan hor taagan dukaankaasi waxa joogay Asad Xaajiyo isla markaasina oo ah meel oo footooyinka lagu sameeyo oo ah reer Xaajiyo meel lagu magacaabo ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba haatee ninkii oo waxa dilay iyo ilka case ayaa meesha wada taagnaa isla markaasina waxa ay sameeyeen Asad Xaajiyo ayaa waxa uu ka soo baxay dukaanka isla markaana wuxuu qabsaday telefoon waxa uu yiri war nimankii waa cabsadeen waa carareen ayuu yiri taas oo ninkii wax soo dilay meesha taagnaa uu maqlayay Asad Xaajiyo markuu telefoonka ku hadlayay isla markaasina uu siriyay ninkan waaba nin dawladda isla markaasina basaas ah oo dawladda telefoon kula hadlay oo dhahay ninkii wax dilay nimankii wax dilay waa carareen meesha iskaga baxsadeen ilka casana meesha uu taagan yahay isla markaasina xabad ayuu ooda kaga furay kadib Asad Xaajiyo dukaanka ayuu ku dhaxdhacay ninkii wax dilayna isla markii meesha ayuu ka baxsaday ninka lagu magacaabo ilka cas oo sawirkiisa aragtaan waxa uu yiri waan isnaqaana ayuu yiri Asad Xaajiyo maadaama meesha lagu dilay waa ogaayay inuu wili daawac yahay laakiin ninkii wax dilo saaxiibkay ahaa oo qorshahayna ahaa in dad kale soo dilno waxa uu maleeyaa inuu meyd yahay ninkiina wuu cararay si kastaba haatee Asad saaxiib ayaan ahaa waxa uu yiri waxa uu iga qaaday footadii aan ku galowri dugsiga sare isla markaasina footadii ugu horeysay ayuu iga qaaday Asad Xaajiyo ama dukaankooda ama showkooda ayuu iga qaaday ayuu yiri si kastaba haatee qaabkaasi ayaa loo dilay Asad Xaajiyo isla markaasina yarkii dilay ayuu ilka cas sheegay in asigana ugu dambeyn la dilay oo gacanta dawladda uu ku baxay maadaama uu ahaa nin shabaab ku qaabilsan qaarijinta sida ayuu yiri Asad Xaajiyo waa saaxiibkay ayuu yiri oo dukaankiisa ayaa kamid ahaa oo footooyinka ayuu noo sameey jiray oo shahaadooyinka sawirada la saaranayo si kastaba haatee qaabkaasi ayay ku soo baxday isla markaasina Asad Xaajiyo laf ahaantiisa ayaa hore waxa uu sheegay inuusan garanaynin sababta lagu dilay iyo dadka dilay uusan garanaynin maadaama uu sheegay in ay ahaayeen dad mooryaan ah isla markaasina doonayay inay ma garanaya ayuu yiri sababta ay ugu dileen maadaama oo sida hore uu yiri maanta ayay soo baxday sababta lagu dilay nimanka markay shabaabka ahaayeen wax soo dileen ayay dukaanka hortiisa istaageen Asad Xaajiyo uma malayn nimanka wax soo dilay inay nimankan yihiin telefoon ayuu qabsaday wuxuu yiri war nimankii wax dilay I don't know marka ma sheegin qofka uu la hadlayay laakiin waxa la telefoon ayuu ku hadlayay isla markaana wuxuu dhahay war nimankii wax dilay waa ay carareen ninkii wax dilo meesha taagnaa ilka case ka amar qaadanayay ayaa waxa uu sheegay in hadduu ilaahay ku idmahayo Asad Xaajiyo markuu hadaladaas ku hadlay isla markaasina xabad ku furay oo meesha iskaga cararay sida ay u dhacday dilkii Asad Xaajiyo ayaa leenahay inuu ilaahay u boogadayo maadaama uu yahay nin iminka curyaan ah oo dalkaasi Malaysia jooga halkan ka daawanaysa waa cali sida media fadlan nala jooga liiska xildhibaanada cusub ee Galmudug oo la shaaciyay iyo magacyo beelaha oo wili aan la soo gudbin sida la sheegay guddiga farsamada maamul u sameynta guddoonka Galmudug ayaa maanta shaaca ka qaaday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug oo muddo la sugayay isla markaasina khilaaf xoogan hareeyay liiska ayaa ka kooban 83 xildhibaan oo isugu jira 20 xildhibaan ahlu sunna iyo 63 xildhibaan oo ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha isla markaasina qaar ay weli diidan yihiin waxaa liiska ka dhiman kaliya 6 xildhibaan oo beelahooda aysan soo gudbin iyadoo loo filayo inay maalmaha soo socdo soo gudbin doonaan isla markaasina soo dhameystiri doonaan si howlaha dhiman loo abaqaado baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa lagu wadaa inuu kulankiisa ugu horeeyay yeesho toddobaadkani kadib uu dhaco muddo badan hareeyay
muddo badan hareeya waxaana xigi doona doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka isla markaasina sidaas loo yagleelo maamulka galmudug cusub isla markaasina ka howlgala maamulada kale sidoo kale liiska ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu dowladda kala noqday wakiilashadiisii arrimaha maamul oo dhisida galmudug isla markaana oo ku adkaystay inay xukuumaddiisa sii shaqayn doonto isla markaasina wax walba oo dhuuso mareed ay dowladda federaalka Soomaaliya ku soo dhisto uusan aqoonsan doonin si kastaba ha ahaatee madaxweyne Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa la leeyahay haddii uu mar laha arrintaasi la soo taago maamulka cusub isla markaasina oo khilaafka iyo halkaas wado waxaa macquul ah in dowladda federaalka Soomaaliya u adeegsato hay'adda NISA isla markaasina jeelka liinta uu ku cabo haddii uu qalalaasa sii wado si kastaba ahaatee xiisadan taagan oo madaxweynaha Geelle Xaaf uu diidan yahay iyo dowladda federaalka Soomaaliya halkaas ka wada ayaa cad ka soo shareertay dhinaca kale dowladda Kenya oo bilowday xeelad cusub oo kaga hortagaysa weerarada al-shabaab ee basaska mara wadankooda isla markaasina qaati billah ka taagan rafaadka ay ku qabaan gawaarida halkaasi mara iyo weerarka shabaab ee ku soo qaadaan markasta dowladda Kenya oo bilowday ilaalo hubaysan oo raaciso basaska ka shaqeeya inta u dhaxaysa ismaamulka Lamu iyo deegaanka Gaarisa ee ka tirsan dowladda deegaanka waxaa la yiri dowlad deegaanka Tana River isla markaasina ilaalo u ah talaabadani ayaa ka dambeysay kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya isla markaasina dad badan lagu baabeeyay oo ay al-shabaab meel kasta iyo duur kasta marka uu baska uu mariyo halkaasi ay ku joojiyaan isla markaasina rasaas ooda kaga qaadaan oo dadkii saarna ay soo dejiyaan muslimin gaale u kala bixiyaan dadka gaaladan ay halkaasi ku toogtaan saraakiisha booliska ee gobolka xeebta ayaa warbaahinta u sheegay inay sababaha ilaalada u qabteen basaska ay tahay sidii loo badbaadin lahaa nolosha dadka rayidka ah ee basaska saaran looguna hortagi lahaa weerarada al-shabaab ee ku beegsanayaan basaska ee masaakiinta ah ee dadka shacabka halkaasi ku safraya maalmo ka hor ayay ahayd markii bas lagu weeraray Lamu lagu dilay 3 qof oo shacab ahaa sidoo kalena weeraro kala duwan ay ka dhaceen gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya lamana oga inta tallaaban cusub oo ay wax ka bedeli doonto weeraradani al-shabaab asaate waxa ay leeyihiin tallaabadani iminka la qaaday wax weyn ayay ka badbaadin doontaa shacabka basaska soo raaca isla markaasina baaba ay u geysteen ururka al-shabaab oo ah manaxayaal ayaa iminka waxa la leeyahay howdka xadka Kenya ayay ku wada jiraan halkaasi gaari kasta uu soo maro waxay sameeyaan inay istaajiyaan isla markaasina dadkii halkaasi ay ku dilaan kanaga daawanaysan waa calansida media fadlan la joogo subscribe saar gambeelka furo dhinaca kale ciidanka Jubbaland oo dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina meydkooda banaanka soo dhigay hub aad u fara badan ka soo qabsaday howlgalka ay ciidamada Jubbaland shalay galabtii gilinkii dambe ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Yaakh Bishaaro oo dhaca duleed galbeedka magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay xubno shabaab ah iyadoo ay ciidamadu soo bandhigeen hub ay ku soo furteen howlgalkaasi meydadka ilaa 3 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayay soo bandhigeen ciidamada iyagoona sheegay inay hayaan hal dagaalyahane oo dhaawaca isla markaasina ay ku soo qabteen dagaalka oo asan weli dhiman isla markaasina dhaawac ahaan ay ku soo qabteen abaanduulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta Jubbaland Aadan Cabduqaadir oo hogaaminayay ciidanka howlgallada fuliyay ayaa warbaahinta u soo bandhigay hubka ay ka furteen al-shabaab iyo meydadka xubnihii ay ku dileen howlgalka isla markaasina banaanka soo dhigeen sawiradaasi ayaa iminka noo muuqda si kastaba ha ahaatee waa ciidanka militariga oo dul taagan ciidamadii shabaabka ah ay soo qabteen ayagoo meyd ah isla markaasina dhar qaybta kore ka qaawan iyo hub aad u fara badan si kastaba ha ahaatee sooma bandhigi karno anagoo ilaalinayna shuruucda YouTube-ka abaanduulaha ayaa sheegay in dadka ku nool deegaanka Yaakh Bishaaro ay ku soo wargeliyeen ciidamada ammaanka xubno ka tirsan al-shabaab ay ku soo gaareen deegaanka sidaasina ugu suurta gashay inay xubnaha dilaan kuwa kalena ay hubka ka furtaan isla markaasina kuwii hubka ay ka furteen qaarkood naftooda ay la baxsadeen kuwan kalena ay soo dileen ay soo qaadeen dhankiisa afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo ka hadlay sida ciidamadooda ugu guuleysteen howlgalladaasi ayaa sheegay inay ku raad joogaan rag u sheegay inay shabaab u qaabilsan yihiin fulinta dilalka qorshaysan kuwaas oo uu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha magaalada Kismaayo oo ay xarunta maamulka Jubbaland isla markaasina soo bandhigi doonaan
si kastaba ha ahaatee sawirada lasoo bandhigay ayaa ahaa sawiro u muuqdo ciidamada daraawiishta ah isla markaasina si weyn u hubaysan ayay soo dhigeen meydadka dadkaasi aan ujeedno si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa ayagana xasuuq ba-an lagu hayaa iyo ayagoo isla markaasina la ogeyn meesha ay ku baxsan doonaan dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo saaga gaaray magaalada asmara ee dalkaasi Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada asmara ee caasimada dalka Eritrea halkaasi oo ku wada hadlayaan labada madaxweyne xalay ayaan baahinay inuu safrayo subaxani ayaa maanta suura gashay inuu madaxweynihii safray isla markaasina halkaasi joogo wafdiga ayaa garoonka diyaaradaha asmara international airport ku soo dhaweeyay madaxweynihii Eritrea Siyaas Afwerki sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Meskel sida uu sheegay wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu asmara ku sugnaan doono muddo 2 maalmood ah halkaasi oo labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan arrimo xasaasi ah isla markaasina danahooda ay ka wada hadli doonaan dowladda Eritrea ayaa kamid ah dowladda saaxiibada dawla la noqday dowladda Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Farmaajo waxayna si qarsoodi ah u tababartaan ciidamo Soomaali ah Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ayaa sidoo kale ku wada jira isbahaysiga saddex geesoodka isla markaasina dana gaar leh si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi ku sugnaan doona halkaan naga daawanaysan waa cali sida media fadlan nala joog haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay yaan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi thumma wallahi